madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho kadiisa ku tagay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. madaxweynaha ayaa booqashadiisa wasaaradda gaashaandhigga kadib waxa uu shir gudoomiyay shirka amniga qaran, waxaana shirkani goobjoog ka ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cumar Cali Cabdi, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeya Gaasay Ibraahim Sheekh Muhidiin, taliyaasha iyo saraakiisha qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. shirkan ayaa ajidiisu waxa qodobo ay ka mid yihiin amniga guud ee qaranka iyo sida dalka looga xoreey lahaa ururka Al-Shabaab. waxaa sidoo kale ajendaha shirkani ku jiray sida looga hortagi lahaa farigelinta qaawan iyo qulqulatooyinka dawladda Itoobiya ay ka wada dhulka Soomaaliyeed, iyo sidii loo dejin lahaa ciidamada masaarida fariisimaha ay ka fiidkacaan ciidamada Itoobiya oo iminka ayagoo qayb ka ah ciidamada midowga Afrika ee ADMIS ee la filayo in dhamaadka sanadkani ay guud ahaanba iskaga xaymartaan geeyiga Soomaaliyeed. dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa wacad ku martay in ciidamada Itoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowga Afrika ee la filayo bilowga sanadkan 2025 inuu ka bilowdo Soomaaliya ilaa dawladda Itoobiya ay ka laabato heshiiskii sharci darrada ahaa ee bishii January bilowga sanadkan 2024 ay la gashay maamulka Somaliland.